kulan ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble halkaasoo aanu ku wehelinay ra'iisul wasaaraha inaan kala qayb galno shirkaas ra'iisul wasaaraha iyo wasiirku waxay isdhaafsadeen warbixino halkaasoo aanu qodobadii ugu waaweynaa oo ka mid ahaa wadahadalka intii lagu jiray shirkaas ay ka mid ahayd in Soomaaliya oo hadda u gudubtay marxalad doorasho la isku raacsan yahay kuna socota jadwalkii loo dejiyey wixii khilaafaad ahaa ee siyaasadeedna horey looga gudbay ay muhiim tahay in bulshada caalamka gaar ahaan European Union oo Ireland sida aan sheegay ay ka mid tahay xubin ay sii daayaan dhaqaalihii u xayirnaa maaragtay is-afgaran waaga ku yimid arrimaha doorashooyinka maanta waxaan halkaa kaga hadalnay sida Soomaaliya iyo fikirka ay ka qabto reportskii ay soo saareen kooxda maaragtay khubarada ah ee soo saaray report madax bannaan Soomaaliya oo aragtideeda ka dhiiban doonta ugu dambays bishan dhammaadkeeda aan ku jirno soddonkeeda iyo in European Union ay taageeraan aragtida Soomaaliya ay ka qabto sii joogitaanka AMISOM iyo optionska ama maaragtay xulashooyinka halkaas lagu sii wadi doono sidoo kale Ireland waxay ka mid tahay golaha ammaanka gaar ahaan guddiyada u saaran cunaqabataynta waxaan ka hadalnay cunaqabataynta hubka Soomaaliya saaran oo ah midka ugu dheer dunida uguna ballaaran iyo sidii iyadana la isula gaari lahaa oo faham la isula gaari lahaa dowladda Soomaaliya in maaragtaa cunaqabatayntaas ay noqoto mid aan maaragtay ka wada socon karno ka wada heshiin karno leh xadidaad iyo meel uu ku dhammaado intaba qodobo kale oo dhowr ah laga wada hadlay waa ay jiraan waxaan kaloo sidoo kale ka wada hadalnay arrimaha laba geesoodka ah ee ka dhaxeeya Ireland iyo Soomaaliya